السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام يا مان أصحاب تلك نقد دعواني سمير البواتشوكتان يسول بو مقال كيجو ومركا يدين سو غاريبا وحين مقال كان عين بلساكا كفيرين دونا قدبادي كسب حي شركي عن عادي هين ka dhacay magaalada Doha ee dalkaasi Qatar oo markaasi ay halka ku shirayeen ururka jaamacadda Carabta iyo waliba ururka iskaashiga Islaamiga ah kaasoo looga hadlayay weerarkii dhawaan Israa'iil ay ku qaaday magaalada Doha oo lagu bartilmaameedsaday madaxda kooxda Hamas marka waxaynu fiirin doonaa waa maxay qodobadii ka soo baxay shirkii sida weyn markaasi indhaha loogu hayay iyo waliba qodobadii uu ka jeediyay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaduna waynu fiirin doonaa waxaan sidoo kale aynu qodobka labaad ku fiirin doonaa isla muuqaalkan aynu saaka soo gudbinayno hadalkii hanjabaada ahaa ee dunida oo dhan markaasi ka yaabsaday ee ka soo yeeray ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaduna balqaybta dambe ee muuqaalka iyaga ayaynu bal ku dul istaagi doonaa soo dhawaada meel walba joogtaan iyo walba muuqaalkaygu marka idin soo gaariyaba waa 16 September 2025 waan markii ugu horeysay maanta hawada aynu ku kulmayno shalay baan eray waa 16 laakiin saakay ayaa 16 aad ayaad u mahadsantiin intiina ay saxday oo markaasi isoo qortay taariikhdu waa 15 bisha ee 16 bisha maaha waxaan xasuusinayaa asxaabta hore subscribe u saaranin ila markaa subscribe aad saarataan balse aad ula socotaan wararka ugu dambeeya ee caalamka kuwa Soomaaliya kuwa arrimaha bulshada dabagalada iyo muuqaalada kale ee xasaasiga ah ee aynu waqtiga badan ku bixino sida markaas idin soo gaarsiin lahayn aad ayaad u mahadsantiin hadii aynu bilowno shirkii ku soo gabagaboway magaalada Doha ee dalka Qatar wuxuu ahaa shir marka hore aan caadi ahayn waxa laga wadaa shir aan ku jirinin schedule-ka ama shir aan balansanayn oo markaasi qaab degdeg ah loo qabtay ayaa waxa la yiraahdaa waa shir aan markaasi aan caadi ahayn marka maadaama magaalada Doha lagu qaaday weerar ay dawladaha muslimka oo dhan ay isugu yimaadeen shirkaasi qaar ka socda jaamacadda Carabta iyo qaar ka socda dalada iskaashiga dawladaha islaamka wuxuuna shirkaasu ajendihiisu uu ahaa sida ay dawladaha muslimka ah ay uga tashan lahaayeen duulaanka Israa'iil ay ku tahay dawladaha muslimka ah maadaama muddooyinkii la soo dhaafay ee Israa'iil ay ku duushay ilaa 8 dal oo kala duwan oo muslim ah waliba ay qaab gardarro ah ay markaasi ugu duushay marka shirku ajendihiisu wuxuu ahaa shir noocaya dunida oo dhan ay indhaha ku hayaan isla markaasna la eegayo bal go'aanada ay qaataan dawladahan muslimka ah marka qodobka ugu horeeyay ee shirka ka soo baxay ayaa wuxuu noqonayaa in looga hadlay weerarkii lagu qaaday dalkaasi Qatar waxayna dawladahanu ay sheegeen inay markaasi aad uga xun yihiin weerarkii gardarrada ahaa ee lagu qaaday dawladda Qatar iyo magaalada Doha qodobka labaad waxay dawladahanu ay sheegeen weerarkii lagu qaaday dalkaasi Qatar inuu ka dhignaa weerar lagu qaaday dalalka Carabeed oo dhan iyo waliba kuwa muslimka ah inuu markaasi uu la mid yahay oo san ahayn weerar lagu qaaday oo kaliya dawladda Qatar waxay sidoo kale ay qodobka saddexaad ay ku sheegeen dawladahani inay diidan yihiin oo ay ka hor imaadsan yihiin hanjabaadii dhawaan ka soo yeertay Israa'iil oo markaasi ay ku sheegtay in dal walba oo muslim ah oo martigeliya kooxda Hamas ay markaasi ay weerari doonaan waxay sidoo kale dawladahan ay markaasi baaq ay ka soo saareen weerarka Israa'iil ay ku hayso magaalada Gaza iyo shacabka Falastiin marka qodobka ugu horeeya oo ay uga hadleen dawladahan xasuuqa lagu hayo shacabka Falastiin ayaa wuxuu noqonayaa inay baaq ku saabsan isla xisaabtan ka dhanaha Israa'iil ay markaasi ay ku baaqeen waxayna ku booriyeen beesha caalamka in markaasi lala xisaabtamo Israa'iil oo xasuuq ka wada magaalada Gaza waa sida ay markaasi hadalka u dhigeen waxay qodobka labaad ay ku sheegeen in cunaqabatayn lagu soo rogo Israa'iil waxayna sheegeen in dawladahani ay ku baaqayaan inay markaasi ay qaadaan tallaabo wax ku ool ah oo lagu cunaqabataynayo Israa'iil qodobka saddexaadna waxay ku sheegeen in markaasi la taageero dacwada sharciga ah ee lagu soo rogay madaxda Israa'iil ee ka socota maxkamadda caalamiga ah waxaana madaxdaasi kamid ah ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu waxay dawladahanu ay sheegeen in dib u eegis lagu sameeyo xiriirka ay la leeyihiin Israa'iil
hadduu yahay midka diblomaasiyadeed iyo hadduu yahay midka dhaqaalaba. shan waxay dowladahan muslimka ah ay ku baaqeen in qaramada midoobay ay markaasi dib u fiiriso xubinimada ay Israel xubinta ka tahay qaramada midoobay. waxayna sheegeen in Israel ay ku xadgudubtay ahdiga u yaala qaramada midoobay, sidaa daraadeed markaasi Israel laga garaaxo xubinnimadeeda qaramada midoobay. marka qodobadii ka soo baxay shirkaasi intaas ayaa nuxurkoodu u badnaa. qaybta horena waxa diiradda lagu saaray weerarkii Qatar, qaybta dambana waxa looga hadlayay duulaanka magaalada Gaza. dadka arrimaha siyaasadda sida weyn ugu dhunduleela ayaa qodobadan markaasi si weyn u duraya, waxaana la leeyahay waxay u badan yihiin sheeko iyo hadal aan dhab ahayn, isla markaasna dowladihii meesha ku shiray ma aysan qaadinin tallaabadii laga filayay inay markaasi ay qaadi doonaan. waxay sidoo kale ay dadka qaar ka mid ah ay leeyihiin qodobada ay soo saareen waa qodobo fiican haddii markaasi la dhaqan geliyo, sida haddii cunaqabatayn siyaasadeed iyo mid dhaqaale ay dunida muslimka ah ay ku soo rogto Israel, saameyn xoog leh ay Israel gaarsiin karaan. sidoo kale haddii ay qaramada midoobay iyo beesha caalamka ay markaasi cadaadis ay ka saaraan in xubinnimada Israel ay ka tahay qaramada midoobay ay si weyn ugu ololayaan, aydan waxa la aaminsan yahay inay dhaawac gaarsiin karaan Israel. iyo waliba qodobo kale oo aad muhiim u ah ayay soo saareen bay leeyihiin dadka qaar ka mid ah, laakiin dowladaha Carabeed iyo kuwa muslimka ah ee maanta jooga kuma dhici karaan ayaa la leeyahay fulinta qodobadan ay markaasi ay soo saareen. madaxweynayaashii meesha ka hadlay, madaxweynihii ugu yaabka badnaa hadalkiisa wuxuu ahaa madaxweynaha Syria oo hadal yar laakiin mug weyn markaasi sheegay dunidana si weyn markaasi looga hadalhayo. wuxuu madaxweynahanu uu yiri ummad kasta oo midowda waxay yeelataa awood wax iska dhicin ah, ummadii kala tagtana waxa bata daciifnimadooda iyo jileecooda ayuu yiri, kadibna wuu iska fariistay. marka hadaynu midowno oo ay dhab inaga tahay midnimadeena wax waynu iska dhicin karnaa, waana isdifaaci karnaa. laakiin haddii aanan midoobinin daciif ayaa noqonaynaa ayuu yiri madaxweynaha Syria. dhanka kale madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa isaguna halka ka jeediyay qodbad ilaa 5 qodob markaasi taabanaysay. wuxuu madaxweynaha Soomaaliya uu marka hore u sheegay inuu cambaaraynayo weerarkii Israel ay ku qaaday magaalada Doha, wuxuuna ku sheegay inuu weerarkaas u ahaa mid gardarro ah. wuxuu sidoo kale madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu ku baaqay xabad joojin ka dhana dagaalka ka socda magaalada Gaza oo Israel markaasi ay laynayso shacabka magaalada ku dhaqan. wuxuu sidoo kale madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu sheegay in Israel ay caqabad ku tahay bariga dhexe iyo gobolka oo dhanba. iyo ugu dambeyn wuxuu madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu sheegay in Soomaaliya ay garab taagan tahay shacabka Falastiin weligeena aynu garab taagnayn. marka madaxweynaha Soomaaliyana dhowrka qodob ayuu ku soo koobay qodbadii uu ka jeediyay shirkaasi. ugu dambeyn qodobkeena ugu dambeeya ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu ayaa wuxuu sheegay hadal dunida oo dhan markaasi ka yaabsaday xilli asaga iyo xoghayaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka su'aalo lagu weydiinayay magaalada Jerusalem. ayadoo lagu guda jiro su'aalihii la weydiinayay Benjamin Netanyahu ayuu wuxuu wariyaashii uu weydiiyay ma haysataan buu ku yiri telefono. Do you have cell phones? You have cell phones here? No. markaasay isfiiriyeen oo qaar ka mid ah ay telefonadii ay markaa ay soo bixiyeen, kadibna wuxuu ku yiri waxaad gacanta ku haysataan qayb yar oo ka mid ah Israel. You're holding a piece of Israel right there. You know that? taasoo macnaheedu ay tahay haddaad ba telefon haysato Israel way kula socotaa. asagoo hanjabaadiisa sii wada ayuu wuxuu yiri cid walba oo isticmaasha telefonka iyo waxyaalaha sida raashinka, sida daawooyinka iyo qalab kala duwan oo uu markaasi uusan magac dhabinin, cid walba oo waxyaalahaasi hesha ama loo soo diro ama gacanta ku haysata ha ogaato inaan la socono Israelna ay markaasi ay la socota ayuu yiri. I mean, a lot of the cell phones, the medicines, the food. hadalkan ayaa waxaa lagu fasiray inuu markaa u dirayay dowladihii muslimka ahaa ee markaasi ku shirayay magaalada Doha oo uu ka waday cid walba oo telefoon gacanta ku haysata, cid walba oo daawo iyo raashin dibadda kala timaada, ogaada inaan idin la socono isla markaasna
aan idin dili karno ama aan idin beegsan karno marka wuxuu u muuqday hadal hanjabaad ah oo ku socday shirkaas wuxuuna mar kale Benjamin Netanyahu u muujiyay inaysan jirinin wax sharciya oo qabanaya wuxuu doonana markaasi uu samaynayo marka gobolka bariga dhexe ayaa wali waxa ka taagan xaalado cakiran oo amni iyo kuwa siyaasadeed waxaana la fiirinayaa bal sida dawladihii muslim